TV de waa arkaysan maanta golaha waxa ka dhaxay majority-gu uu diidanaa waxaan la yiraahdaa xaaladda degdega ee gobolka Sanaag iyadoo aanay dan u ahayn iyadoo dalku uu ku jiro abaaro iyadoo uu dalku gobolka Sanaag u baahan yahay horumar maanta xaaladda degdega waa mid dhaawacaysa waa mid xataa ciidanka militariga ah nacsiinaysa markaynu taariikhda dib u raacno militarigii Soomaaliya hore waa la jeclaa markuu xukunka la wareegay baa ayaa la nacay taasi waxay wax yeelaysaa maanta qaranka laakiin maanta shirgudoonku wuxuu sameeyay khalad majority-gu wuxuu ahaa no laakiin golaha ayuu xidhay taasina waa khalad waana sharci darro waana ka soo horjeednaa aqbalina mayno gobolada dalka in qaar la godoomiyo waa mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim waa arkaysan de horta wax meesha ka socday gobolka Sanaag isagoo abaar la tiicaya oo ma garanaysaa marka horeba dhaqaale ahaanna inuu takoor ku jira tirsanayay isaga iyo gobolada kale bariguba ayaa waxa lagu soo rogay ciqaab jamaaci ah xukunka degdegahi xaalado badan oo kaga haboonaan lahaa tan maanta oo lagu soo rogi lahaa baa hore u dhacay 100 qof baa maalin dhintay oo aan xukun degdega la soo rogin beela isweerarayo isugu burursanayo aan xukun degdega lagu soo rogin maanta beela is hor fadhiyaana ma jiraan beela isweerarayaana ma jiraan wax la kala dhaxgalayaana ma jiraan sabab ay xukuumaddu u doonayso iyadoo ay la jeceshay un bay la jeclaatay maanta inuu xukun degdega ku soo rogto sharciyadii loo mariyay baa timid qodobka dastuurka ee 29 wuxuu ina leeyahay marka ay soo ifbaxaan xaalado gaar ah oo halis gelin kara nabadgelyada dalka khatar ku noqon kara xeerka iyo nidaamka khalkhal ku abuuri kara xasiloonida guud ama kalsoonida dhaqaale waxa madaxweynuhu soo saaraya xeerar degdeg ah oo lagu joojinayo khatarta marka madaxweyne xeerka soo saaro golaha wakiilada maxaa u yaala qodobka 8 faqradiisa 6 waxay tilmaamaysaa labada gole ee baarlamaanku fadhiyo wada jira ayay ka yeelanayaan arrimaha ay ka mid yihiin doodaha la xiriira xeerarka degdega waxa saaka la isugu yimid waxay ahayd xeerka degdega xukuumaddu soo saaray in lagaga doodo golaha in xeerka loo qaybiyo mudanayaasha inay doodu horeyso oo la isqanciyo oo in xaaladan biri ambalka ku sukan ee lagu soo rogay xeerarka degdegii inay waafaqsan yihiin iyo in kale in laga doodo bay ahayd tii iyadoo la gaarin oo shirgudoonku diiday in xeerka la qaybiyo doodna laga yeesho ay arkayseen markaati ka wada haydeen ayaa markii uu codka geliyay 8 baa u codeeyay xeerka in sidaa lagu socodsiiyo markuu arkay 107 iyagoo fadhiyaan ay 8 qura codeeyeen muu gaarin inuu yiraahdo yaa diidan ha lagu celiyo buuri waa taabaqlayseen waana mamnuuc marka uu codka hore qaado ee uu diiwaan geliyo ee haadii intay tay uu rigoor garaysto inuu halka ku joojiyo maaha waa yaa diidan inuu yiraahdo oo taana qoro yaa ka aamusay inuu yiraahdo oo taana qoro oo xeerku ku saasuq dhaqan galo taa uu diiday oo uu joogo waad arkayseen intuu tiro geliyay buu haddana markuu arkay inay yar tahay joojiyay haddana waa ka golaha xidhay si looga hawlgalo weeye sabtida xaalad isbedesha in laga hawlgalo xukuumadda uu kala tashado maanta sidii golaha loo burburin lahaa ee awalba wixii lagu burburin lahaa lala soo dhex galo inta loola jeedo waa intaas marka ummadda waxaanu u sheegaynaa in saaka waxa halka ka dhacay aanu dastuur waafaqsanayn shirgudoonku inaanu dastuurkii raacin inuu dastuurkii jabiyay inuu xeerarkii dhaqanka burburiyay inuu ku tuubsaday waxaanu leenahay wax kastuu la yimaado waxba kama jiraan xaaladii ma jirto xeer degdeg lagu soo rogi lahaa ma taala meesha in yar baan idinku biirinayaa oo xeerosaadka Xuseen baa dhameeyay dastuurkii iyo qaynuunkii xeerosaadku wuxuu sheegayaa marka codeynta lagu jiro xildhibaan kaliya bixi karaa ma jiro maanta waxa dhacday iyadoo codeynta lagu jiro codeyn baa lagu jiro waa la tiriyay tiradii hore way dhacday marka codeynta lagu jiro waxa mamnuuc ah inuu xildhibaan ka baxo fadhiga ilaa inta codeyntu dhamaanayso ceebtii u weyneed baa maanta dhacday shirgudoonkii baa baxay iyadoo codeyn lagu jiro oo iska tagay taasina waa xeerosaadkii bay jabisay halka leedana way mari doontaa wassalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim waan salaamayaa saxaafadda nasiib darro weyn ayaa saa ka dhacday oo ka dhacday labadii gole oo maxay ahayd madaxweynuhu fadhiga wada jirka ugu yeedhay xaalad degdeg ayaa la geliyay gobolka Sanaag xaalad degdeg oo gobolka Sanaag la geliyaana maanta may muuqan xaqiiqdii Soomaali waligeedba way istilaysay waan ka xumahay horta marka hore aan horeysiiyo ragga la laayay ee maxay ahayd ciidamada
boqolkiiba boqol baan ka xunnahay waa birmageydo waannu ka xunnahay laakiin ummadda kale ee faraha badan waxba may dhimin rag baa wax dhimay raggii dalkay joogaan dalka gudihiisa kama bixin dawladday u taal inay maxay ahaytay soo qabtaan xilkaasi dawladdu saaran yahay ummaddii waxa la damcay in albaabada loo xidho marka horeba gobolkaa oo la tiicayay abaar iyo biyola'aan iyo maxay ahaytay horumar la'aan iyo waddooyin xumo ayaa iminka waxa la damcay in la qufulo oo handaraabkii qof loogu daro waannu ka xunnahay xaqiiqdii boqolkiiba boqol saaka markii labadii gole la isugu yeedhay ee labadii gole fadhiisteen wixii meesha la soo dhigay loo codeeyey 730 xildhibaan baa u codeeyey intii kale diidmay ahayd gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax isaga oo fulinaya amar u jeefka ku sito wuxuu diiday in uu codkii labaad qaado wuxuu golihiibu xidhay wuxuu ka kacay maxay tahay golihii oo la fadhiyo maxay tahay isaga dastuur jabin iyo xeer jabin iyo xeer hoosaadkiiba jabiyey maxay tahay tallaabooyinkeedana ilaahaydinka ka dhigo waa la qaadaya ummadda Soomaaliland ha ogaato waxa dalka ka soconaya dalkan waxa la rabaa in la burburiyo dalkan waxa la rabaa in shuruucdiisii lagu tunto dalkan waxa la rabaa in dadka indhaha laga rido dalkan waxa la rabaa in dadka la isku diro Soomaaliland ay ka fiirsada Soomaaliland ay ogaada Soomaaliland ay arka hay'adaha jooga ceerigaabo tii u dambeysay shalay bay soo baxday dagaal kama dhicin fidmadi kama dhicin balaayo kama taagnayn ceelaf weyn baa hore la isugu laayay iyadana waa heshiis waa laga heshiiyey maktiba la marinayay maxay ahayd garada dagaal kama dhicin niman baa jidgooya rag u galay way dileen raggiina dalkay ku jiraan oo way joogan dawladdu waajib waxay u leedahay inay soo qabato wax kale laakiin xoolaha biyaha laga oomiyo in awrta oo maxay ahayd aan biyi saaray dib loo ceelasha looga celiyo in xukun military dalka lagu soo rogo ma ogolin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh